الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaas kadib waa darsigeeni labaad in sha allahu tacaala oo ka mid ahaa duruustii manhajiga ahayd aan akrinaynay oo aan kaga hadlaynay ama ku sharxaynay manhajka jamacat الاxtisaam bilkitaab wasunna. darsigeeni hore waxaan ka soo baxnay muqadimadii iyo baabka koobaad iyo baabkii labaad. waxaan gelaynaa maanta in sha allahu tacaala baabka aan saddexaad oo ciwaankiisu yahay atawxiid. runtii waxaa la odhan karaa manhajkan intiisa badan baabka labaad ayuu sharxahayaa oo aan ku soo niri caqiidadeena iyo manhajkeennu waa manhajkii iyo caqiidadii salafka saalixa ahaa, ahlu sunnaha waljamaacaha ahaa, xagga cilmiga iyo xagga camalka iyo xagga istidlaalka iyo xagga dacwada iyo wax kastaba. marka midkaas oo la tafsiilinayo ayaa noo imaan doona in sha allahu tacaala laga bilaabo baabkan saddexaad ilaa baabka 16aad. dhammaan waxaasoo dhan waxay tafsiilinayaan ama ay tilmaamahayaan waxaa ku soo arooray baabkii labaadoo aan soo qaadanay. walaalayaal, qofka muslimkaa meeshuu ka dhaqaaqo ama diinta ay ka bilaabataa waa tawxiidka weeye. marka tawxiidkaasi qofka muslim ahaana waa looga rabaa, gaar ahaana qofka daaciga inuu fahamsan yahay oo waddadiisu u caddahay ayaa laga maarmaan ah. culammaduna waxay yidhaahaan tawxiidku waaba diintoo dhanba, qur-aanka oo dhanba tawxiidka ayuu ka hadlaa baa la yidhaahaa. marka tawxiidka in la fahmo oo dadka loogu yeero oo aada iyo aada runtii dhidibada loo aaso waa loo baahan yahay. marka waxaa ku soo arooray baabkan waa shay runtii la odhan karo waa manquul ama waxaa laga soo guuriy kutubada caqiidada siday tilmaamahayaan oo la sheegay weeye, wax kale kuma jiraan. tawxiidka oo runtii la qaybiyo waa nooc tafsiil ah ama nooc tafsiir ah ama nooc fududayn ah weeye, wax kale ma aha. waana dariiqo culummadu ay runtii ku dhaqmeen oo ay maaragtay wax ku alifeen weeye. waana dariiqa istiqraa'iya. markii qur-aanka la fiirshay iyo sunnada nebiga sala allahu alay wasalam la fiirshay ayaa sidaan soo baxay. waxaa soo baxay tawxiidka loo baahan yahay oo xaqa ilaahay nagu leeyahay subxaanahu wa tacaala in saddex meelood laga fiirinayo in loo baahan yahay. kan koobaad waxaa weeyaan tawxiid rububiya, kan labaad waxaa weeyaan tawxiid alasmaa wasifaat, kan saddexaad waxaa weeyaan tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcubuudiyinta waa la yidhaahaa. marka taqsiimkan loo qaybinayo saddexda waa taqsiimka waxaan ku yidhi istiqraa'i weeyaan. culummada maaragta ayaa sidaas runtii kala soo baxay maxaanku rahaa nusuusta qur-aanka iyo nusuusta axaadiista wax kale ma aha. culummada qaarkood ayaa laba qaybood ka dhiga oo waxay yidhaahaan tawxiid almacrifa waalihbaat iyo tawxiid alطalab bay yidhaahaan maarata waliraada. marka tawxiid almacrifa waalihbaat oo macnihiisu yahay ilaahi subxaana wa tacaala sida loo fahmayo oo loo garanayo oo sifaadkiisa iyo waxa xaqa uu leeyahay loo sugahayo nadari ahaan
iyo faham ahaan iyo cilmi ahaan iyo in wixii camali ahaan loo sameeyo oo tawxiidul talab wal iraada qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo ka raba yeela oo tawxiidkii ku dhaqman ayadana ma qayb kale weeyaan marka si loo qaybshaba dhamaanteed waa maaragtay si sax weeye oo nusuustii iyo kutubtii culimada iyo ayaa runtii yani cadeynaya dadka qaar kood baa khalad ka fahmay oo qaatay in tawxiidku uu maaragtay maxaan gooraa lagu cayaaray ama si khalad loo fasiray runtii saasna ma aha hatta culimada ashaaciga laftooda hatta culimada ashaaciga laftooda ayaaba qaar kood kala qaybqaybsan tawxiidka oo waayiga yira maaragtay waa in tawxiidka sida uu leeyahay Shahristani ku leeyahay kitaabkiisa maaragtay Milal wa Nahal wuxuu leeyahay waa in la waxido Ilaahay subhanahu wa ta'ala fi dhatihi annahu waahidun fi dhatihi la qasima lahu wa annahu waahidun fi sifatihi la sharika lahu wa annahu waahidun fi af'alihi la nidda lahu yuhna aso kala marka wuxuu leeyahay saddex shay in la waxido ama saddex tawxiid in la fahmaa loo baahan yahay buu leeyahay tawxiid dhat wa tawxiid sifat wa tawxiid al-af'al marka taqsiimkaas ay laftoodu maaragtay shaaciradu saas bay u qaybiyeen marka waxa maaragtay maxaan ku wada taqsiimkaani aan ceeb ah ama dhibaato leh ma ahane in la fahmo oo la fududeeyo oo dadka loo soo dhaweeyo ayaa maaragtay loola jeeda ayadoo oo laga fahmayo nusuusta quraanka iyo ahadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam culimada qaar ku mutaqaddimiinta ahna ay ba sheegeen sida al-imam ibn Battah al-Akbari uu sheegay وكذلك الإمام ابن مندى sidoo kale maaragtay uu xusay marka aymada mutaqaddimiinta laftoodu taqsiim kan way ishaareen away tilmaameen marka taqsiim dhibaato leh ma aha waxaan loo jeedaa adigu maaragtay in tawxiidka lagu soo dhaweeyo oo waxa lagaga baahan yahay lagu sheego oo xaq Ilaahay lagu tilmaamo loola jeedaa marka mid ka hor hadaan ka bilowno tawxiid rububiyya Ilaahay subhanahu wa ta'ala rabbi ahaantiisa in la qiro oo aan حبل لجودة للوداجين ونعتقد اعتقادا جازما بأن الله رب كل شيء ومليكه وعن اعتقادنا اعتقاد جازم عقيدة نقطه عقيدة مارة جازم وجنتن أو أن شكل هين أو أن فرفر لهين أو أن كذا ما شاء الله هين بلو بهني هاي اعتقاد جازم كأننا علم بهني هاي مركب وإن سي اعتقاد جازم لو اعتقاديه إن الله سبحانه وتعالى ويهي rabbiga wax kasta iska leh oo rabbina u ah marka waxa la yiraahdaa rububiyadu saddex shay ayaa laga eegaaba la yiraahdaa ama culeyskeedu u badan yahay xagga maaragtay abuurista iyo xagga lahaanshaha iyo xagga tasarrufka saddexdaas shay bay badana waxa la yiraahdaa rububiyadu ay ku wareegtaa marka Allah subhanahu wa ta'ala inuu khaaliq yahay wax abuuray musawwirka wax kasta asagoo amaamudo ay abuuray oo sameeyay inuu asagu yahay Allah iska leh كونكان إسكاله إنه أسوي هاي الله كونكان معموله أو واحد كذا هي إرزاق ديسا يحورن بحنا إنه يهي إلا فهمه وي مركو قف إنه ما ركتي أي كخلدنته بابك أصجعه أما لا يه طبعا قف كمسلم كأي الله سبحانه وتعالى إنه ما ركتي واحد استأبوري وأمسيه هاي واحد استليه هنا وأمسيه هاي لكن دوك قاركود أيام مرة قاركود حكم غليسا أيوة أورانا أياه إلى يكون كوليه هاي وأنا معمولا لكن ما ركت ولي هبل أما الشيخ هبل أيوة حكوا ريتيو وحلو ديبي أرنك أسوا خالد ويان إلى سبحانه وتعالى ملك يجيسا إنكم وريتيو إن أمديبه وأتي آيات واحد ولا يشرك في حكمه أحدا إلى حكم كيس عذنا ما هو ذاتي من الديبه marka fikradda ilaahay waa leeyahay laakiin soo bixin karo soo ma dhiibi karo ilaahay subhanahu wa ta'ala uluhiyadiisa iyo sifooyinkiisa ilaahay ma dhiibo ilaahay maamulkiisa innakum wareejiyo arimada waa in la fahmo weeyaan waxa laga yaabaa qaarkood inay maaragtay isiraahaan awliyada iyo dadka sharafta leh oo ilaahay jecel yahay ayaa meelaha qaarkood wax loo dhiibaa ama meelaha qaarkood wax ka maamula ama maaragtay maxaan ku loo yeeran karaa ama badda maaragtay hebel baahaya ama dhulka qaybtaas hebel baahaya waxa noocaas oo kale waxa la shirki weeye runtii waana shirki khatar weeye qofku inuu ictiqaadiyo in koonka ilaahay la maamulo in koonka ilaahay uu qaar dhiibay in dhulka wali loo dhiibay in badda wali kaliya la siiyay waxaasi wax tawxiidka ka hor iimaanaya weeyaan marka inuu ilaahay khaaliq yahay المدبر وياهي الرازق وياهي
وشيء لو بهاي إن فهمه إنه يهي المتصرف إذا كتصرفها هي ومعمولها هي وحكستو دعيا أسقو سبحانه وتعالى كورقة علمي أهان معمولة ينا أيضا إن فهمه وشيء لقى مارمان هذه مدة فهمتيد قلبي حصلها هي مارت النفط هذا حصليسا حق إلهي بآديسا أسقى بريسا أسقى رجينيسا أسقى كعبسنيسا وحاوبا أنت هي أسقى ويديسنيسا وحكبقيسيد أسقى كم انجليسا مالك لما آديسيد لكن هذاك آخر دنته أم ليسيد إن مالك لو احتران أما مامك إله لو ذاقه عدة كرو إلهي لو ذاقته أم ليسيد بآديسا وهو يرانيسا أرن كسر خطر ويان توحيد كلام الله ويان توحيد الأسماء والصفات إله سبحانه وتعالى صفوين كيسا هي أسماء ديسا هي تلمامهيسا أصلا كل يسبع إسكاله أصلا كصفيسا لما وذاقه إله سبحانه وتعالى كمال كيسا هي ما ركتي صفوين كأوليه هي أصلا كل يس أي إسكاله أما سيد إلهي أوليه هي عيد ولا ما شرته علم إلهي عيد إلهي علم كيس أو كلا لما شرته إلهي مقال كيسا إلهي أرجيسا إلهي أوديسا وحاصل إلهي سبحانه وتعالى صفوين كيسا وقارك أويان مركب رمينا ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى إلهي إنه كصفة سيئة بصفات الكمال والنعوت الجلال منزه عن كل نقص وعيب إلهي إنه كان زهي وحكسته نقص أو عيبه سيدة آيات لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي سبحانه وتعالى وحل مذيه مجران وأنا الله سميعه ومقلك بدن وأنا الله بصيرك وأرق بدن وي وحكست وجيدا وحكا قرصون مقلكيس وحكا قرصون مجران أرقيسنا وحكا قرصون مجران علميسنا وموقيها إلى مجرته وحن رميننا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بانصب رميننا أسماء الله سبحانه وتعالى يصفون كيسو وتوقيفي وي وحي قرآنك الشيغي أما أحاديث الشيكتي أيها لك قادنا يا أيها الرومين يا أيها السامارة اللي آمنها يا وحان الله سبحانه وتعالى أصغينا وحكستو الله سبحانه وتعالى اسكسفيي كتاب كيسا أما النبي صلى الله عليه وسلم كسفيي أحاديث تيسا أنه تحريفين أنه أن بدلين أنه أن كيفية تمثيل تشبيه أنه يلين وحاول معنى هذا marka leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmigu leeyahay waxabuu arkaa waxabuu maqla leeyahay maqalkeena oo kala ma aha arageena oo kala ma aha cilmigeena oo kala ma aha mid asaga u gaar ah oo jalaalkiisa iyo cadamadiisa u qalmo weey ala fahmi salaf salih salafki hore saasay ahaayeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala asmaadiisa iyo sifooyinkiisa sareeyo qiimaha badan sidii u rumayn jireen قرآن كلا قادن جري أحاديث لقى قادن جري ساسينا أهيد وحن كلو رميسنا بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه إله سبحانه وتعالى يهي على نقصر هي أو عرشه سبحانه وتعالى كو استوذين يهي أيها رمينا يا تاسنا ما أرض واحد بدن معها كون كانوا حكى جراي وخالق مخلوق وي وحسد حد مجران وخالق مخلوق وحسكون حدران أما سكون حجراي ما يجران marka khaliq makhluuq hadeeyihina hada khaliq waa sareeya makhluuquna waa hooseeya marka kala saarnaanta kala saaran yihiina waa laga maarmaan kala sareeyntuna ayaduna ma aragtay waa laga maarmaan taas ku fududeynaysa qof kasto muslim ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala baryahaya ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanayana waa saga kor fiiriya qalbigaaga kor aadahaya indhahaaga kor aadahaya maskaxdaada kor aadaya gacmahaaga kor aadahaya marka dhamaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala sareyntiisa iyo culuwiisa ayay tilmaamahayaan وهو معهم أينما كانوا بعلمه ما الكستو اللي جوين الله سبحانه وتعالى علميسو هي أرجيسو هي مقالكيسو وكل جوجا الله سبحانه وتعالى وأجيه وهو معهم أينما كانوا الله ما أرتي كل جوجا وهي وعلميسي عام ما ركتي هي أرجيسو هي مقالكيسا أيها كل جوجا لكن الله سبحانه وتعالى والله ما ركتي محن كورها كسر رئيس سماواتك أرشيجيسا كسر ريوية الله مخلوقات كيس كل حشرة معنوه معنا وحويه علميسا أيها كل جوجا أرجيسا أيها كل جوجا كون كانوا دان أدو كل وين يهي كون كان مركز ما ركتي لو فيرشه سماوات مركز لو فيرشاهي
dhulku waa yar yahay markii samaawaadka carshiga loo fiirshaana waa yar yihiin marka wuxuu dhan waxyaalo iska yar weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaani makhluuqaad yar yar oo maaragtay gacantiisa ku jira oo cilmigiisa ku jira oo aragiisa ku jira weeyaan waxaan kaloo aaminsanahay bianna alqur'aana kalaamullahi xaqiiqatan qur-aanku inuu kalaamkii ilaahay yahay oo xaqiiqa uu yahay middaa waxaa xoogaa laga ixtiraasayaa ama la iska wardiyeynayaa dadka yidhaaha qur-aanku kalaamkii ilaahay oo xaqiiqaa ma aha ee kalaamkii ilaahay buu ka dhigan yahay sida laga wariyo ashaacirada qaarkood laga wariyo ay aaminsan yihiin qur-aanku cibaaratun can kalaami illahi kalaamkii ilaahay buu ka dhigan yahay arrinkaas waa khatar weeyaan kalaamkii ilaahay kama dhignee kalaamkii ilaahay laftiisii weeye ilaahay baa ku hadlay subxaana wa tacaala isagaa soo diray isagaa ku hadlay isagaa laga soo qaaday isagaa laga soo wariyey nabigana sallallahu alayhi wasallam baa lagu dul akhriyey saas weeye marka waa kalaamkii ilaahay weeyaan isaga xaggiisuu ka yimid xuruuftiisa iyo macaanidiisuba xagga ilaahay ka timid subxaana wa tacaala waa munazal waa la soo dejiyey makhluuq ma aha qur-aanku waxaan kaloo aaminsannahay ilaahi subxaana wa tacaala maalinta aakhiro in la arkahayo oo dadka muuminiinta lagu sharfahayo inay ilaahay arkaan subxaana wa tacaala arkidaasoo ah midda maa wax kasta ka macaan badan wax kasta ka karaamo badan weeyaan wujuuhum yowmaydin naadira ilaa rabbiha naadira waana shay mutawaatir ah weeye oo axaadiista ku soo aroortay axaadiista ru'yatullaahi fi laakhira inay tahay mutawaatir culimmadu waa sheegeen laakiin dadka qaarkood baa dhibsada oo inkira oo diida oo shubahooyin ku fura laakiin ahlu sunnuhu xataa ashaacirada lafteedu maaragtay ru'yatullaahi fi laakhira way aaminsan yihiin laakiin muctasilada iyo firada noocaasa iyo shiicada iyo ayaa diida towxiidka saddexaad waxaa weeye towxiid aluluuhiya in ilaahay subxaana wa tacaala ilaahiyadiisa lagu waxido in asaga cibaadada loo gaar yeelo cid kale aan la wadaajin wanu'minu biuluuhiyati illaahi tacaala wa annahu huwa aladii yastaxiqu alcibaada waxdahu laa shariika lahu ilaahay inuu yahay macbuudka xaqa ah oo cibaadada mutaysta oo xaq u leh keligiis inuu yahay in la ictiqaadiyo weeye wa anna kulla macbuudin siwaahu baatilun waxa ilaahay ka soo haro la caabudaa inay baatil yihiin waa in la aaminaa marka asagaasna waa baatil cibaadada la caabudahayaana waa baatil weeye marka macbuudka xaqa ah oo cibaadada mutaystay in la caabudana xaq u leh wixii ka soo haro la caabudaan ay baatil yihiin ilaah subxaana wa tacaala weeyaan waatay aayaddu leedahay dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu alkabiir marka ilahi subxana wa tacaala alxaq weeyaan waxaa ka soo haro la caabudahayaana waa baatil waxa ay maaragtay ay noqdaanba waxaa ilaah ka soo haray waa macbuud maaragtay waxaa weeyaan waxyaalo waxaa weeyaan makhluuqaad ah weeyaan makhluuquna macbuud ma ahaan karo marka allah baa macbuud ah waxa ka soo haray waa makhluuq waxa makhluuq ahna nooc kasta ay noqdaan ha noqdaan anbiyo ha noqdaan awliyo ha noqdaan malaa'ig wax kasta ay noqdaan maadaama makhluuq uu yahay waa addoon ilaahay weeye addoonnimadaas baa ku filan oo sharaf u ah haddii xaqeeda uu guto oo sida ay tahay uu uga soo baxo wanajtanibu jamiica anwaaci shirki waxaan ka dheeraanaynaa dhammaan shirkiga baan ka dheeraanaynaa anwaacdiisa waan ka dheeraanaynaa annagu shirkiga ilaahi subxana wa tacaala oo loo shariig yeelo waan ka fogaanaynaa wanuxadiru minhaa dadka muslimiinta ahna waan uga digaynaa maxaa yeele waa shay khatara weeyaan waana waxaan bida lala soo diray inay dadka amraan inay ilaahay keligiisa caabudaan dadkana uga digaan inay wax kale caabudaan ama shirki ay la yimaadaan shirkigu macnihiisu waxaa weeye allah subxana wa tacala waxa uu mudan yahay oo cid kale lala siiyo weeye ama qalbiga laga siiyo haddii aad ictiqaadisid in ilaahi subxaana wa tacaala wax lala maamulo ama koonka lala leeyahay ama irsaaqada lala bixinayahay shirki maaragtay ictiqaadi ah oo qalbigaa ku jira weeye haddii qofku yani maxaanku rahaa xagga hadalkiisa ama xagga ficilkiisa ku sameeya asna maaragtay waa shirki kale oo maaragtay haddii yani qofku uu qabri uu maxaanku ku dawaafahayo uu qabri xoolo u gowracahayo ama qof weli ah ama qof nebi ah uu qofku maaragtay tala saaranhayo oo u yeeranhayo oo asagaas uu ku xiran yahay oo wixii ka maqan asaga uu maaragtay ka rajaynayo wuxuu ka baqayo asaga uu ka magangelahayahay kaasina maaragtay shirki weeye
marka qofka muslimka ay ama wali ha ahaado ama qof kale ha ahaadee waa adoon ilaahay weeye maaragtay adoonnimadaas uu ku jiraa kana bixi maayo hadduu nool yahana waa adoon hadduu dhintana waa adoon weeye markuu nool yahay buu qofku maaragtay dhaqdhaqaaq leeyahay oo maxaan ku yiraahdaa awood ilaahay siiyay buu isticmaali karaa laakiin markii qofku uu dhinto awoodii xataa maaragtay uu ku lahaa adduunka oo dhaqdhaqaaqa ilaahay uu siiyana uu ka dhamaanayaa marka dadka muslimiinta qaarkood oo inay qubuurta wax u raadsadaan ama ay ku dawaafaan ama dadka awliyada ahoo xurmada mudan oo makaanada wanaagsan diinta ku leh loo maleeyo inay maamulka ilaahay wax la wadaagaan arrinkaasi arrin khatar weeye qofku si kastuu u fiican yahay si kastuu sharaf u leeyahay si kastuu ilaahay ugu dhow yahay qofku adoon weeye adoonnimada lagama baxo qofku maadaama uu makhluuq u yahay uu makhluuqnimo uusan ka bixi karin sidoo kale ka baxi maayo adoonnimada marka makhluuqnimada iyo adoonnimadu waa isku xiran yihiin maadaama makhluuqnimadu aysan ceeb ahayn adoonnimada iyaduna ceeb ma aha marka nebiga iyo weliga iyo shaykha iyo qof kastoo wanaagsani waa makhluuq inuu makhluuq yahana ceeb ma aha sidoo kale maaragtay waa adoon ilaahayna ayaduna ceeb ma aha marka adoonnimadaasi wax laga baxo ama laga qalan jabiyo ama dhammaata ma aha marka in meel kale lagu xirmo oo maar qof dhintay ama qof nool la tala saarto oo xoolo loo qalo ama shardi laga galo oo la yiraahdo hadii waxa ay samaysid ama waxaas aan helo ama aan caruur helo ama aan irsaaqad helo ama aan roob helo ama cudurka aan ka badbaadaay waxaasan ku sameeynaya arrinkaasi waa shirki weeye sababta waxa weeye qofkaani waxa maaragtay u diraysid shaqadiisa ma ahaba cilmigeedii ma laha awoodeedii ma laha ka warqabkeedii ma laha marka Allah cilmiga badan oo naxariista badan oo wax kasta ka warqaba wax kasta ka celin kara wax kasta ku heli kara asaga in la bariyo oo asaga lagu xirnaado ayaa loo baahan yahay marka wuxuu leeyahay sheekhu ama maartay manhajku uu leeyahay waan ka digaynaa wax kasta oo shirki ah qubuurta lagu dawaafo qubuurta maaragtay wax loo nadro maaragtay dadka dhintay oo istiqaasa iyo magangaliyo weydiisi iyo tala saarasho iyo maaragtay loo tadarruco oo arrinkaas oo dhan arrin khatar weeye taas waxa weeye marka waa xagga baabkaas waxa kale oo jira shirki kale oo ah xagga xukunka iyo xagga maaragtay maamulka Allah subhanahu wa ta'ala asaga ayaa maamulaha koonka ah asaga ayaa maamulaha maaragtay koonka irsaaqa ah marka makhluuqaadkiisa waana irsaaqa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana u taliyaa talada Ilaahayna xagga geerida iyo xagga nolosha iyo xagga arsaaqada kaliya ma ahane waxa loo baahan inay noqoto xagga maamulka maxaa xaraan ah maxaa xalaal ah maxaa noo wanaagsan maxaa noo wanaagsanayn maxaa loo kala baxayaa dantu maxay ku jirtaa siyaasadda sidee baan yeelnaa dhaqaalaha sidee baan yeelnaa dadka isqabsada dadka maaragtay wax ka dhaxeeyaan oo isqabsa see loo kala xariir waxa soo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu maaragtay asaga ya xaq u leh inuu kala cadeeyo waana kala cadeeyay Ilaahay inuu ku irsaaqo saka dhaafaahay hada macquul ma waa inuu ku irsaaqo waxna ku diro waxna ka reebo kuna hanuuniyo ayaa maaragtay jirtaba marka wax kasto Ilaahay subhanahu wa ta'ala xukunkiisa shariicadiisa ka hor imaanaya sida aaraada iyo dadku waxay jecel yihiin iyo caadooyinka khaldan iyo qawaaniinta khaldan oo laga soo minguurinhayo gaalada maaragtay aan had Ilaahayna aqoon subhanahu wa ta'ala aqli fiican aan lahayn laga soo minguurinayaa waa khalad weeye waxa maaragtay shirkiga ayay soo galaysaa in la iska ilaaliyo weeyaan xukmul jaahili bay soo galaysaa marka qofka muslimka oo xukunkii Ilaahay haysta xukunkii shariicada haysta kalaamkii Ilaahay haysta ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam haysta qofkaas inuu meel kale aado ma u baahnaba maxaa yeelay meel kale marka aadaysid cilmi kaaga maqan ma jiro adli kaaga maqan ma jirto hadaa cilmi u baahan tahay علمك إله سبحانه وتعالى أياك وفلا هذا أنبانته عدالة إلهي بكوفنا سبحانه وتعالى هذا أنبانته نحريس إله سبحانه وتعالى أيا كغفلا مركا إن حق إلهي لو حكم دونته وحكم كيس لقاته وأمر كيس لقاته وحلاشو مارتي حلالية لقاته وحارانته حارانته ميل لقتها إله سبحانه وتعالى حق بنقول إيه محايا لكم هو كون كيسي دلك كيسي إركوا إركيسي أرزاقد وأرزاقديسي أنا قدومديسي بان ناي marka meel kale ma aadi karno in meel kale la aadaana waa gardarro weeye
إلهي سبحانه وتعالى وحوليه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون ضدكو جاهلية وحا عقل لهين إن حكم كذا لا آذاي ما هالكاسي آذايان ضدكو طلحهما مرك حكم كوناكسن يتلذ وناكسن حق إلهي بجرته سبحانه وتعالى لكن ضدك مؤمنين تا وأهل يقينك أيا كفى إذي سنهية وكل يبانية الله وحوليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاضل السماوات والأرض وهو يدعم ولا يطعم وقال تعالى قل أغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كمان أيضا حيث الماميان إله سبحانه وتعالى وحانا حين إن المعركة حكم كلا لقى هالسدو ولو حكم تجو وشريعة لقى دون تاي إن تهي عيب إن تهي معركة محنكور ملك الدع هذه أنا عيب كوكتهي قفل ما لا أبوري أو لا إرزاقه أو لا ليه وناقص اللوية رهيه أو خلي حليحان هي عيب كوكتهي وأنا ملك الدع الله سبحانه وتعالى خالقه أو رازقه oo mulkigiisa uu iska leeyahay in mulkigiisa cid kale maarta gacanta laga geliyo makhluuqaadkiisa cid kale ay u taliso cid kale oo talinaysaay ma irsaaqada ay bixisaa ma dhulkay leedahay ma cirkay leedahay ma hawaday leedahay waxa ay leedahay waa xagee haday doonayso in wax xukunto hada meesha ay leedahay iyo meesha ay abuurtay ha aado dhulkan ilaahay baa iska leh dadka ilaahay baa iska leh asaga in xukunkiisa la qaato baa loo baahan yahay la qaato shariicadiisa haddii ma shariicadaas aan la qaadan ama maxaan ku aan lagu kalsoonaanin oo aan laga raali noqonin shirki baa lagu dhacayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la tuhmaysto ayaa lagu dhacayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la tuhmaysto ayaa lagu dhacayaa marka qofka muslimka ah hadduu ilaahay tuhmaysto oo shariicada tuhmaysto oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tuhmaystaa runtii dib weyn baa ka imaanaya aqeedada ayaa ka buraysa tawxiidka ayaa ka buraya حياة التوحيد وحكون سيئة إله سبحانه وتعالى أولا آمنه صفوين كيس أولا آمنه علم كيس أولا آمنه رحمة كيس أولا آمنه عدل كيس أولا آمنه مركا هدي أنا لو كرصونا معنى ذو حويان علم إلهي للضر أيوي عدالة إلهي للضر أيويان رحمة إلهي للضر أيوي هتقفك علم إلهي الضر عدل إلهي الضرانا هتقفك مسلم نقول ما هي qofkaas qof gaal buu noqonayaa marka in la iska ilaashaa loo baahan yahay oo lagu kalsoonaado adigu hadaa garatid iyo hadaa ban garanba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ilaahay ku amray ayaa dantaadu ku jirta adduun bay ku jirta midaada aakhiro bay ku jirta naxariistaadu bay ku jira wanaagaagu marka in si fiican loo fahmaa loo baahan yahay lagu kalsoonaado hadaan lagu kalsoonaanin oo qalbiga laga neceb yahay ama laga shakisan yahay ama qalbigu ma aragtay uu diidiidayo arrinkaas nifaaq ayuu noqonayaa qalbi wanaagsan oo ilaahay ku kalsoon oo xukunka ilaahay ku kalsoon oo amarka ilaahay ku kalsoon oo wixii ilaahay amray ma aragtay samiicna wa ata'na oranaya xinahu sallallahu alayhi wasallam amray sidoo kale aronhaya ayaa loo baahan yahay marka diintu labada qodob bay ku taagan tahay wixii xagga ilaahay kaaga yimid xagga nabiga sallallahu alayhi wasallam kaaga yimid in aad rumaysid baa loo baahan yahay wixii khabar ah oo lagu sheegay khabarkaas mid hore u dhacay ha ahaado mid imaan doona ha ahaado tasdiiqul khabar in khabarka la rumeeyo ayaa loo baahan yahay waxa kale loo baahan yahay itaacatul amr wixii lagu amran ayagana in la adeeca loo baahan yahay oo aad tiraahdo waan yeelay marka hadii marka tasdiiq laga waayana hadii khabarkii aad beenisidna hada diinta kaga baxaysa hadii amarkii aad diididna diinta kaga baxaysa marka in lagu fara adeega weeyaan in dhammaan wixii ilaahay noo sheegay diintu noo sheegtay axaadiisna sallam ku cad in la aamino la rumeeyo waa loo baahan yahay wixii amar ahna oo qaata ah waa xalaal sameeya waa xaraan ka dheeraada waa fiican yihiin sameeya waa xun yihiin ka fogaad ahna ayada in la qaato oo ma aragtay cinwaanka muslimiintu wax kale ma ahaba waxa weeyaan samiicna wa ata'na weeyaan waa maqalnay waana yeelnay weeye wixii ka dhaca oo gaf ahna hada bani'aadamnimadaada iyo dhaxfigaaga keenaya laakiin go'aanku inuu ahaado samiicna wa ata'na ayaa laga maarmaan ah
wixii kaa kharaaba ama kaa xumaada ama kaa hoos baxa ama ka gaabisidna toobadkeenka iyo istighfaarka ayaa kuu diyaar ah sida aayadu leedahay samicnaa wa atacnaa ghufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir taas baan insha Allah taala kusoo akeen darsigeena maanta labaad wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.